بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي بشي كوي تمناد دulqaacid 1447 ku beegan 25 bishii afraad 2026. Indhaha caalamka ayaa maanta ku wajahan magaalada Islamabad, halkaas oo wasiirka arrimaha dibadda Iran Abbas Araghchi uu kulamo muhiim ka wado. wuxuu la kulmay taliyaha ciidanka Pakistan Asim Munir, isagoo u gudbiyay jawaabtii Tehran ee ku saabsan soo jeedinta jeedimaha Mareykanka, gaar ahaan arrimaha xayiraadda badda iyo xiisadda ka taagan marinka Hormuz. dhanka kale, Mareykanka oo hogaaminaya Donald Trump ayaa sheegay in wadahadallada toos ah la filayo, balse Iran si cad ah ay u beenisay arrintaas. Ra'iisul wasaaraha Pakistan Sharif ayaa isna la filayaa inuu la kulmo wafdiga Iran, iyadoo Pakistan ay door dhexdhexaad ah ka ciyaarayso xiisadda. Xaaladda hadda is-afgaran waa iyo su'aalo badan ayaa jira. Ma bilaaban doonaan wadahadallada mise xiisadda ayaa sii kici doonta? Qodobka labaad, wasiirka difaaca Iran ayaa sheegaya in inta badan gantaaladeeda weli aan la isticmaalin, inkastoo ay boqolaal gantaal ay ku riday Israa'iil intuu socday dagaalkii dhowaan. Tehran ciidamadeeda ayaa weli waxay haystaan awood militari oo weyn, taas oo muujinaysa in dagaalka uusan weli gaarin heerkii ugu sarreeyay. dhanka kale, al-Hirs al-Thawri Irani, ilaalada Iran ayaa ku dhawaaqay ciidamada Iran ayaa ku dhawaaqay inay qabteen markab lagu magacaabo Ibaminadas gudaha marinka biyaha Hormuz, iyagoo ku tuhmay inuu xiriir leeyahay Mareykanka. Wararka ayaa imaanaya iyadoo xiisadda u dhaxaysa Iran iyo Mareykanka ay weli taagan tahay, inkastoo xabad joojinta ku meel gaar ah la gaaray, taasoo ku lug leeyahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Iran waxay muujinaysaa awood militari oo qarsoon, halka Mareykanka uu cadaadis saarayo in la gaaro heshiis cusub, taasoo keeni karto nabad ama dagaal. walaal waxaan rabaa in inta labadaas qodob kusoo wasiirka arrimaha dibadda Iran Abbas Araghchi oo gaaray magaalada Islamabad wadahadal oo u bilaaban doona. wadahadalladaas toos inay noqon doonaan in kale waa arki doonaa. warar kusoo qoran iyo wasiirka difaaca oo ka hadlay awoodda ciidamada leedahay iyo waxay haystaan ciidamo iyo waxay haystaan difaaca gantaalada inta haystaan iyo hubka weli la isticmaalin, asoo falanqeynaya ayaa labadaas qodob waxaan rabaa inaan ka hadlo. wixii kusoo kordhay labadaas qodob iyo wixii kale insha allahu tacaala waa warkeena dambe insha allahu tacaala. waa markii wadan kulmeen maanta insha allah. waa in salaamaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu.